تفاصيل dheeraada ayaa ka soo baxaysa qaar kamid ah horjoogayaasha maleeshiyaadka alqaacida Soomaaliya ee madaxooda lacagta la dul dhigay. Raggaasi ayaa qaar kamid imika sawiradooda la helay kuwaasi oo hore aan looga heenin wax sawira. Xogtan ayaa muujinaysa muuqaalada shakhsiyaad kamid ah horjoogayaasha maleeshiyaadka alqaacida Soomaaliya oo hore aan looga heenin wax sawir ah. muuqaalka imika aad u jeedaan waa Axmed Cabdi oo Maxamuud Godone oo ah horjoogaha maleeshiyaadka alqaacida Soomaaliya. Juulaay 10keedii 1977 ayuu dhashay Hargeysa Soomaaliya ayuu ku dhashay. Kani waa Muqtaar Roobo Abu Mansuur oo horay sawirkiisa loo hayay. waxa uu dhashay 1969 Xudur ayuu ku dhashay. Ibrahim Xaaji Jaamac Afqaan wax sawir ah iyo tafaasiil dheeraad lagama hayo, laakiin waxa la rumaysan yahay in Hargeysa uu ku dhashay ehel ay yihiin Axmed Cabdi oo Maxamuud Godone. Kani waa Fuaad Maxamed Qalaf oo loo yaqaan Fuaad Shangole. waa Soomaali haysta dhalashada dalka Sweden. Kani waa Bashiir Maxamed Maxamuud, ninkani hore magaciisa Soomaalidu uma aqoonin, laakiin waa ninka ugu sareeya dhanka militariga maleeshiyaadka alqaacida Soomaaliya. 1982 ayuu ku dhashay Soomaaliya. Sakari Ismaaciil Axmed Xirsi oo ah ninka ugu sareeya sirdoonka maleeshiyaadka alqaacida Soomaaliya wax sawir lagama hayo. kani waa Cabdullah Yare ninka lagu magacaabo taariikhda uu dhashay lama hayo, waxaan rumaysan yahay in Soomaali uu ku dhashay.